kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan qodobada wararka ugu waaweyn waqtigan waxaa ka mid ah sir la helay oo sheegaysa in Axmed Madoobe lacagtii ugu badneed uu ka helay Imaaraadka Carabta iyo halkii lacagahaasi uu Axmed Madoobe u isticmaalay xog ku saabsan khilaafkii ugu xumaa soo kala dhaxgalay madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa ay xiisad ka jirta Garowe al-shabaab oo qaraxyay rag hubeysan ba soo geliyay magaalada Muqdisho iyo cabsi ka jirta caasimadda maxamuud sayid aadan oo si qarsoodi ah loo soo geliyay degmooyin ka mid ah gobolkaasi Gadow wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dhuusamareeb tartanka loogu jiray xilka gudoomiyaha baarlamaanka oo aan warbixin badan kaga hayno iyo wasiir kale oo ka tirsan xukuumadda Kheyre oo shaqada ka tagay wararka ugu waaweyn bariga dhaxeena haddii aan eegno waxyaabaha ku cusubna waxaa ka mid noqon dara dalalka ugu quwadda weyn ee isticmaala hubka nuclear-ka la soo saaray iyo Sacuudiga oo xiray dadka sida sharci darrada ugu ganacsada dhoofinta haram cad ama xayawaanka la yiraahdo haram cad qodobadaasi kuba kale ayaa saaxiibayaal ku daawo doontaan wararkeena maanta ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhe gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka waliba warbixinada xiisaha badan ee halkan aan soo gelinay warbixintana ugu horeysa ee maanta Khamiis aan ku bilaabo xog la helay ayaa muujinaysa in Axmed Madoobe lacagtii ugu badneed markan uu ka helay Imaaraadka Carabta madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhaqaale ka helay Imaaraadka Carabta kaas oo loogu talagalay in lagu socodsiiyo howlaha Jubbaland maadaama dowladda federaalka ay ka jaratay dhaqaalihii $150,000 ee maamulkaasi la siin jiray madaxtooyada Jubbaland ayaa laga soo geliyay lacagta madaxtooyada Jubbaland ayaa waxay sheegtay in lacagtan ugu badan ay ka timid dhanka Imaaraadka Carabta waxayna jawaab u ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay jaratay dhammaan baqi lacagii la siin jiray Jubbaland kadib markii khilaaf soo kala dhaxgalay dowladda iyo maamulkaasi Axmed Madoobe ayaa Imaaraadka dartiisa ula dagaalamay Villa Soomaaliya kadib markii uu ka biyo diiday go'aankii dowladda ee qaadatay in dhexdhexaad laga naqdo khilaafka ka jira wadamada khaliijka saan xogta kulin lacagtan ayaa maalmaha soo socota loo qiimin doonaa shaqaalaha iyo ciidamada Jubbaland oo muddo mushaar aan qaadan taasoo sababtay in qaar ka mid ah ilaalada gaarka Axmed Madoobe qudhooda ay ku biiraan ururka al-shabaab kadib markii ay ka godoodeen mushaar la'aan oo aysan qaadan wax ka badan muddo 2 sano mushaaraad Axmed Madoobe waxa la sheegay lacagahan uu ka helay malaayiinta dollar dowladda Imaaraadka Carabta in markan uu adeegsanayo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo waliba shaqaalaha maamulkaasi qodobada kale waxaa qaybka khilaaf xooggan waxa uu soo kala dhaxgalay madaxweynaha Puntland Dani iyo ku-xigeenkiisa iyo xiisad ayaa ka jirta magaalada Garowe khilaaf xooggan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash kaasoo si cad loogu dareemayo gudaha magaalada Garowe iyo waliba madaxtooyada caasimadda waa madaxtooyada maamulkaas iyo guud ahaanba caasimadda Puntland ee Garowe khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii madaxweynaha Puntland uu xilki ka qaaday gudoomiyihii bangiga dhexe maamulkaasi taasoo uu ka carooday Axmed Karaash isla markaana uu diidmo kala hor yimid madaxweyne Dani qorshihiisa ku saabsan xilki qaadista gudoomiyaha bangiga dhexe wararka qaaran helin ayaa sheegaya in khilaafka labada mas'uul ay saameyn xooggan ku yeelatay xafiiska xukuumadda waxaana joogsaday shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee shacabka loo hayo ee Puntland madaxweyne Dani ayaa la rumaysay in dhawaan uu sameeyay dhaqdhaqaaqyo ku saabsan maamulkaasi Jubbaland soo sare u qaaday shakhsiyaadka ka soo horjeeda xididaha u siibay oo ka mid ah gudoomiye Dhoobo Daarood oo khilaaf kala dhaxay ka taas oo ugu dambeyn xilkiisa uu ku waayay mooshin uu abaabulay madaxweyne Dani uu baarlamaanka horgeeyay lama oga halkay ku dambeyn doonto xiisadan u dhaxaysa madaxweynaha Puntland iyo waliba ku-xigeenkiisa Karaash qodobada kale waxaa qaybka al-shabaab qaraxyay waliba rag hubeysanaya soo geliyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho sida warar soo baxaya hadda la helayo wararkan ka helina magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa sheegaya in al-shabaab Muqdisho ay soo geliyeen qaraxyo dagaalamayaal hubeysan oo doonaya inay weeraraan mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda ammaanka ayaa si aad loo adkeeyay waxaana laamaha ammaanka ay lagu wargeliyay in qaraxyada ku jira magaalada Muqdisho ee ragga hubeysanba adamacsan weeraradaasi in laga hortago wararka qaar ayaa sheegaya in raggan laga shakisan yahay inay lug ku marayaan agagaarka tiyaatarka qaranka iyo waliba hooyooyinka oo inta u dhaxaysa meelaha hadda ay qorsheynayaan weerarkan ay ka fuliyaan waxaana la sheegayaa in cabsi badan ay jirto ammaankana aada loo adkeeyay xarumahaas ayaa ammaankooda waxaa sare loogu qaaday
oo la adkeeyay waxaana lagu arkay ciidamo badan oo cusub oo si aad ah u sugaya ammaanka kuwaasoo taxadari feejignaan dheeri ay ka muuqato. Al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxii 28 Diseembar ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan. Al-shabaab ayaa mar kale qorsheynaysa weeraro badan inay ka geystaan magaalada Muqdisho. Weeraradaas oo ay doonayaan meelaha sida weyn loo ilaaliyo ammaankooda inay ka fuliyaan, gaar ahaan xindaabka madaxtooyada oo meelaha sida weyn amnigeeda loo ilaaliyo. haddii ay u suurto gasho al-shabaab in mar kale ay weerarto xindaabka madaxtooyada ayaa waxay noqonaysaa fashil kale xoogan oo wajahdo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dowladda ayaana lagu eedeeyaa in si weyn kaga gaabiyaan la dagaalanka al-shabaab muddadii 3 sano ahayd ee dowladdu ay talada dalka haysay. waxaa lagu dhaliilaa dowladda sidoo kale ma jirto hal magaalo ama hal gobol dowladda ay xoreysay muddadii 3 sano ahayd ee dalka ay shaqeynaysa, waana dadka qaar ayaa aaminsan sababta keentay in awoodda al-shabaab ay xoogeysato maadaama dowladdu ilaa hadda ay sameyn wax isbedel oo ku saabsan amniga iyo la dagaalanka al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay Dhuuso Mareeb iyo tartanka loogu jiro xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaan markan eegi doonaa. maanta Khamiis ah waxaa la filayaa in xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedkaasi Galmudug ay dhageystaan khudbadaha musharaxiinta ee qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug. musharaxiinta isdiiwaan geliyay ee u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa gaaraya 7 xubnood, waxaana shalay isdiiwaan geliyay dhammaantood marka loo eego kuwaas oo soo gudbiyay taariikh nololeedkooda iyo weliba aqoontooda heerka ay gaarsiisan tahay. 3 musharax oo kamid ah 7daasi musharax oo isdiiwaan geliyay ayaa u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka, waxaana kala yihiin 1 Maxamed Nuur Gacal, xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cismaan iyo weliba xildhibaan Cabdilaahi Axmed Culuso, waana 3da shakhsi ee tartamaya xilkan. sidoo kale musharaxiinta u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka 1 iyo 2 ayaa ayna la diiwaan geliyay kuwaas oo gaaraya 4 xubnood. maalinta berri oo Jimco ah ayaana lagu wadaa magaalada Dhuuso Mareeb caasimada Galmudug lagu qabto doorashada gudoomiyaha baarlamaanka. ammaanka goobta ay ka dhacayso doorashada ayaa aad loo adkeeyay iyadoo wadooyinka lagu arkayo ciidamo badan oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad la yiraahdo, kuwaasoo lagu daadiyay guud ahaan magaalada. tartanka xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ciddii ku guuleysta ayaa go'aamin doonta cidda heli doonta awoodda ugu badan ee baarlamaanka oo lagu tartami doono doorashada madaxweynaha, waxaana madaxweynaha midiisa ay tahay mid ay ku tartamayaan mucaaradka iyo dowladda. musharaxiinta ugu badan ee u tartamaya xilka ayaa ah kuwa ka kala tirsan xubno dowladda ay wadato iyo kuwa mucaaradka. musharaxiinta qaar ayaa haddaba muujinaya tanaadul siyaasadeed oo ugu horeeya Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyar oo la hadalhayo inuu iskaga hari doono tartanka doorashada. wasiir kale oo ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa shaqada iskaga tagay ama iscasilay. Cabdilaahi Faarax Weheliye oo kamid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka uu ka hayo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre. musharax Cabdilaahi Faarax ayaa iscasilaada xilka wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ka tagay asagoo oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo weliba saaxiibadiisa xukuumadan kaga mahad celiyay muddadii wada shaqeynta quruxda badneed ee isla soo shaqeeyeen. musharaxa ayaa sababta uu iskaga casilay xilkaasi ku sheegay in asaga uu doonayo inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee maamulka Galmudug maadaama darteedna Galmudug u xibsiitay uu doonayo in xilka qaranka uu iskaga tago. wasiirka ayaa shir jaraa'id uu shalay ku qabtay Dhuuso Mareeb wuxuu ku sheegay in xukuumaddu ay fargelin toos ah ku hayso dhismaha maamulka Galmudug, asagoo tilmaamay in handadaad lagu hayo xildhibaanada cusub ee loo soo xulay baarlamaanka Jimcihii tagay. wasiirka ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay sidoo kale in dhibaato ay wajahayaan xildhibaanada ay kuwa maxbuus ama xabsiye ku jiraan. musharax Cabdilaahi Faarax ayaa la rumaysan yahay inuu taageero ka haysto maamulka Ahlu Sunna oo awood fiican ku leh baarlamaanka Galmudug. wasiir dowlaha howlaha guud ee xukuumadda Axmed Cabdikariin Kaariye Qoorqoor ayaa asna hor ugu dhawaaqay in xilkan uu iska casilay maadaama uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Galmudug. Qoorqoor ayaa ah musharax ay wadato xukuumadda Soomaaliya iyadoo doorashada Galmudugna waxaa la filayaa in lacago badan oo malaayiin ah la siiyo xildhibaanada codeynaya. wixii warar ku soo kordha daawadayaal wararka la xiriira doorashada Galmudugna wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. wararka Soomaalida ka baxsaneen eegi doona, laakiin intaan eegin wararka banaanka ama Soomaalida ka baxsaneen Maxamuud Sayid Aadan si qarsoodi ah ayaa loo soo geliyay gobolkaasi Gado xog u helay janaalkana xulashada.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulkaasi Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa si qarsoodi ah habeen ka hor ku tagay gobolkaasi Godob. Janaalkeena xulashada wararka ayaa helay macluumaad ku saabsan in madaxweynaha oo dhanka Mandheera ka soo galay isla markaana la soo geliyay qaybo kamid ah degmooyinka Luuq iyo Ceelwaaq oo ka tirsan gobolkaasi Godob ayna horkacayeen xubno asaga ku beela oo si weyn u ilaalinayeen. sidoo kale wararkan helina ayaa sheegaya inay la socdaan ciidamo Kenyaan ah waxaana lagu sheegay in gaadiidka qofulan ee militariga Kenya lagu galbinayo xubnahan ay ku jiraan wasiiro ka tirsan ee maamulkaasi Jubbaland oo horkacaya Maxamuud Sayid Aadan ayaa halkaasi ka wada kulamo ula qaadanayo saraakiil ka tirsan ciidanka Jubbaland ee goostay ee ku biiray dowladda kuwaas oo laga dalbaday inay ku soo laabtaan Jubbaland. wafdiga Maxamuud Sayid Aadan waxa oo ay la socdaan ciidamo Kenyaan oo aad u badan ayaa la sheegay in wali ay ku sugeen qaybo kamid ah degmada Ceelwaaq. Maxamuud Sayid Aadan ayaa muddo ku xanibnaa Mandheera kadib markii ciidanka Kenya ay la sheegay in halkaasi ku ilaalinayeen maadaama loo diiday madaxweyne ku-xigeenka inuu gudaha u soo galo degmooyin kamid ah gobolkaasi Godob ayaa waxaa hadda ay marti gelinaysaa kulamo iska soo horjeeda iyo khilaaf iyo loolan xooggan ay ku tartamayaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. wararka Soomaalida ka baxsan waxa ugu waaweyn Sacuudiga waxa uu xiray dad badan oo ka ganacsanaya xayawaanka la yiraahdo haram cad go'aan iyo soo saaray dowladda Sacuudiga. saraakiisha ammaanka dalka Sacuudiga ayaa sheegay in ay xiri doonaan tiro badan oo lagu eedeeyay inay ka ganacsadaan xayawaanka haram cad oo sida sharci darrada ah looga ganacsado isla markaana laga dhoofiyo dalkaasi. dadkan ayaa lagu eedeeyay in ay ka ganacsadaan xayawaanka duurjoogta ah ee loo yaqaan haram cad. warbaahinta gudaha ee Sacuudiga ayaa ku warantay in raggan ka ganacsada xayawaanka haram cad dowladdu ay baadi goobayso waxaana la sheegay in ay loo iibgeeyo dalal Yemen ay ku jirto. saraakiisha ammaanka ayaa waxay qabteen raggan xilli ay la sheegay inay dhex marayeen xadka Sacuudiga iyo waliba Yemen ayaga oo wada dhowr kamid ah xayawaanada haram cad. qaar kamid ah xayawaanadan duurjoogta ah ayaa laga soo warinayaa in loo iibgeynayo dalal ay ku jirto Yemen iyo waliba dalka wadamada Afrika ugu horeeya Koonfur Afrika oo loo iibgeeyo dalalkaasi. dadka u dooda ilaalinta duurjoogta waxay sheegeen in muhiim ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda xayawaanaadka kuwaas oo sheegay in dowladda Sacuudiga markan ay xabsiga u taxaabtay dad badan oo ka ganacsanaya xayawaanka la yiraahdo haram cad oo kamid ah xayawaanada ku nool wadankaasi Sacuudi Carabiya. waxaana inta badan xayawaanadan loo iibgeeyaa wadamo ay ku jiraan Afrika oo la sheegay in ay dhaqaale badan ay ka joogaan oo xayawaanadan haram cad iyo waliba kuwa kale ee soo raaca lagu iibiyo. imise wadan ayaa haysta hubka casriga ah ee nuclearka ayaan eega warbixintan xilligan oo ay taagan tahay xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. sheekadan waxaa wax badan hadda aad u hadalaya warbaahinta dadku ay isweydiinayeen inta wadan ee isticmaala hubka nuclearka. hubkan waxaa loo aqoonsaday inuu yahay midka wax gumaada qasaarihiisa inuu yahay mid aad weyn oo duniduna khatar ku ah. waxaana la sheegaa in hubkan hadda uu aad ugu soo badanayo wadamada hormaray oo la sheego in ay sameeyaan hubkan nuclearka. wuxuu ka samaysan yahay bambayaalo waa hal bambo oo nuclear ah waxaana baabi'in kartaa magaalo oo dhan sida warbixinta lagu sheegay. waxaa la sheegay hubka nuclearka inuu ka samaysan yahay kiimikaal badan waana hal bambo laakiin baabi'in karta sida warbixinta lagu sheegay magaalo oo dhan taas oo duniduna khatar weyn ku ah. dalalka hormaray ee isticmaala ayaa waxaa kamid ah wadamada Iiraan, Mareykanka, Raashka iyo wadamo kale sida warbixinta lagu sheegay. bambooyinkan waxaa hadda ku tartamaya wadamada hormaray ee Mareykanka, Iiraan iyo Raashka, Britain iyo wadamo kale ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa ugu horeeya ee hadda isticmaalaan. warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in wadamada ugu horeeya ay kamid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Raashka, Faransiiska, Jaynaha, Hindiya, Bakistan, Israa'iil, Kuuriyada Waqooyi, Iiraan ay ku jiraan wadamada sida weyn hadda 5 sano ee ugu dambeysay hubkan sida weyn u soo saaray wax gumaada ee wadamadaas laga isticmaalo. warbixintan ayaa saaxiibayaal warkiina maanta ugu dambeysay channelkan warkan xiga saaxiibayaal intaan ku kulmi doono nabadgelyo.